xagga dalka hayay kulmiye ayaa ku dhawaaqay isla markaana kafaalo qaaday in dhisay dhismaha deyrka dugsiga sare ama secondary school ee degmada Garadka soo ay hore waxyeello u gaarsiiyeen roobab dabayl wato oo ka daay degmada Garadka daba maamulaha dugsiga sare ee degmada Garadka ama secondary school Muuse Siciid ayaa la maamulka ku xigeenka dugsiga sare Salaad Jaamac ayaa ka warbixiyay baahida weyn ee u qabeen dhismaha isla markaana u mahad celiyay isbixaadka dalka hayay kulmiye hadalada dinaca ka mid ah sida tan halkan aynu joognaa boqodadan maanta joognaa waa boqodii secondary ka Garadka dugsiga sare Garadka sida maamulka ku xigeenka Salaad Jaamac ka dhawaajiyay waxa haysatay iskuulka dhibtaas ay ku keentay dabaylo ay keenay roobabkii hore ee sanadkii hore daayay media u marayna xirsi oo soo hogaamiye ku noqon maysid qadar yar oo 2500 ah ayaa de maanta ka kala tagtay waxa weeye ballanta inta leegaad ballan firada inta leeg ugu sameysay halka waxaan leeyahay dhaliisha inta leeg xirsiyo diyaada iska leh waxaana wasaaradda waxbarashada cod weyn ku dhiibaynaa inay qayb weyn ka qaataan dugsiga oo dhistaan gidaarkaas iyo labada qol ee maxay tahay laboratory-ga iyo labka library-ga iyo labka oo burbursan qalab wanaagsan yaalo oo waxay tahay buug badan oo ilaa maxay tahay 20,000 oo buug baan naga qasaroobaya hadii caawa roobdo ama dabaylo kale ay yimaadaan qalabka sayniskuna wuu fiican yahay runtii 4 jeer ayuu kacay labada qol ay kacay hadda waxba isku haysto oo garan kartaa guri 4 jeer kacay oo aan rehabilitation lagu sameeyo sidoo kale isaguna waxaa ka hadlay oo wakiil u ah xisbiga talada dalka ayay kulmiye xildhibaan Aadan Xaaji Axmed oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Garadka isla markaana ka soo baxay xisbiga xanka talada dalka ayay kulmiye oo isaguna ka dhawaajiyay inay dhisayaan dhismaha deyrkan dugsiga sare ee ama secondary school hadaladiisana waxa kamid ah sida tan wax la salaad hulba masaajid la isugu yimi masaajidkiiba xoolo la isku qorqoray masaajidka wax la iskaga qabanayo dabeedna nin baa kacay oo wuxuu yiri dibigu qora dibigii markii lagu qoray ee la dareeray la siiyay dibigii weydiiyo wuxuu yiri war masaajidkan kaga baxayay ma ahayn waxaan bixiyay ballanqaadka xirsi wuxuu ahaa mid masaajidka laga baxayo waxaan ku idin sheegayaa anigu waxaan ahay xildhibaan ka tigsan golaha deegaanka ee degmada Garadka oo ka soo baxay xisbiga kulmiye waxaan ka ballanqaadaynaa anigoo ku hadlaya magacayga magaca xisbiga iyo magaca xukuumadda inaanu iskuulka dumay waxa gaadhay aanu qabanayno oo fulinayno hawsha xirsina aynu celino intii yareeyay hafarka hayday u bixiyay meel kale kaga oo dugsiga sare ee ama secondary school ayaa in badan soo gudbisnaa deyrkiisa isla markaana uu haatan kafaalo qaaday dhismihiisa isbixaadka talada dalka ayay kulmiye oo madax sare TV-ga qaranka degmada Garadka